muddo aan isleeyahay 3 bil waa dhantahay waan ka maqnaa gobolka marna waxaan joogay Muqdisho mar waxaan joogay wadamada Afrikaanka Uganda Kenya meelahan kulleyna ma ahayn marka xaqiiqada laga hadlo 5 cisho ayaan wax bareefada ka garanayaa aan meel ku tagay si shakhsiya 5 cisho maalintii lixaadna waan ka soo tuuray waxaan raadinayaa inta badan waxay ahaayeen waxa aan wada ognahay marxaladda Soomaaliya ku jirto qaasatan gobolkaani marxaladda uu ku jiro in loo helo waxyaabaha ka dhiman rugniyada ka dhiman in loo buuxiyo loo helo waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa dadka Soomaaliyeed u dadaalayaan qaasatan dadka reer Hiiraan waxaan filayaa meeshaan hadda aan joogno ayadoon marxaladaan ahayn waan maalintii iigu dambeysay walaha waxa laga joogaa sanad ku dhawaadkii waxaan isugu nimid arrimo xanuun badan oo sidii hadda wax loo yihiin oo waliba si qaab daran ay ahayd markaas dadka reer Hiiraan waxaan rabaa laba arrimood oo midba marxalad tahay inaan maanta u cadeeyo marka hore inay u diyaar garoobaan dagaal dhamaystirka al-shabaab in loo diyaar garoobo dagaal fiiri dagaal sidiisaba waa dagaal hadduu bilowdo waa kala adkaasho meel dhaxoo la istaagaya garanay shabaab waa dagaalana waa inaan kala adkaana rajo dambe lagama qabo inaan meel dhaxa istaagno waxaan rabaa dadka reer Hiiraan oo ilaahay buqcada uu ku beeray in hadday ciidan leeyihiin iyo hadday gabar biyaha ka daba qaada tahay iyo haddii wadaad quraan u akhriyo ay tahay waxaadna ogaataan waa rabadaanoo lama shaqayn karo rabadaanta waa lagu shaqeeyaa anigu waxaan aaminsanahay dagaalkan ku jirna cibaado inuu yahay dariyali waaya inuu cibaado yahay aaminsanahay haddii shalay waxay ka soo halaabeen maanta ilaahay igu dambi dhaafayaan aaminsanahay xaqiiqada marka laga hadlo aqliga shabaab la taagan yahay kaas waano shabaab waana ka adkaanay waana dhamaystiraynaa in lagu dhiiradaan rabaano waxa intaa dheer dadka reer Hiiraan hadday dalka joogaan iyo hadday dibadda jiraan bacdul shabaab haddii alla idmo 20ka bisha Juun ilaa 1da Juulaa inta ka dhaxaysa inay magaalada Beledweyne isugu yimaadaan arma si aan uga tashano ayeen annaga inaan wabadhir u qaado xeel noqdaan ma rabno dagaalaan galnay shaydaanka waa iska firjinay qaybo ku jira oo Hiiraan kamida ayadana haddaan wajahaynaa hadii alla markaan wajahno ma gacmadaysanayna xaafadaha ma kala aadayna ya meesha awrku nooga dheeli jiray waan naqaanaa Sooma inuusan nooga dheelinaan u baahnaa waa inaan aqligeena iyo garashadeena iyo aqoonteena iyo helo cilmi waxaan leenahay inaan isu keenno wiilka dhintay iyo ka dhaawacmay iyo waqtigaan bixinay wax kuwa noole waxay ka macaashaan in la helo wixii laga soo shaqeey jiray wax ka duwan inaan ka shaqeyno waa ku celinaya arrinkaas gobasha naga dhigayna waa in fayd gareeyna reeyran dadka ahlu cilmiga ah dadkii nidaam garanayay oo ama qurbaha joogo ama Afrikaanka noo dhow ha joogo ama Soomaaliya ha joogo gogoshu waxay taalaa beled weyn nuxurka looga tashanayaana waa aayaha dadka reer Hiiraan that's all meesha loo guurayo in aragti midaysan laga yeesho bacdu dhamaystirka shabaab taasi waa inahaas waxa laga yaabaa in la isleeyahay duquma dagaal lagu inkaarino cidda dadka gelin rabaa war ma mid barwaaqaan idin gelinayna hadii alla
يا إلهي إذن كيس مد أن كم عاشنا قلينا مد أن عدو كل ما يسترنا قلينا دقال وحا الله برتا سيدا مد شينك إيا اللي كرترك إيا الله برتو إيا الله برتا رقنيو ليه حيابان سوارقنا وح إلهي حالك يعني مرة بقينا الميديا واحد بدن كشيغو أديك لفتين واحد بدن بدوكتين هذا سدح بلود كبدن دقالك الصومالي والتاقية صوبة عيدنا الصومالي والديارسين شعب كله والديارسين يا يحيروا بريجي وحول بهل الجريدي أيا وحوم مغلالي الورابع خير لها يا ورابع كد حولي لها كان سيروا ورغير كاس حوله وأيوه قوله